qaar ka mid ah heesaha abwaan cabdiqani xaaji Aktoobar ee xambaarsan dayrada qaawan ayaa qanciyay qaybo ka mid ah haweenka caraysan ee niyad dhiska ugu jira Snapchat-ka. dhaawacaan dhaymada ku raysan ayaa helay muddooyinkii dambe dawooyin sahlan kadib markuu doctorku u qoray badiba dhaawacii dhuljiifka ahaa murtida abwaan cabdilaahi xasan ganay taasi oo dhayda meelahan dhakhtar gaadhin. haddii ay kusoo weerartay baruurtu ama saxaydho raac talada doctorka isu dheelitirka lafaha iyo baruurta kuna ciyaar heesta abwaan faarax murtile ee jamjam istaag adigoo raacaya qaab socodka jamjam istaag. haddii aad caadaysatay cadho badan ama cabasho badan oo darigii hore nabcayd si aad naftaada u badbaadiso guur amase guurso amabase ma u malaynaysaaba inuu ku asiibay mid kamid a cudurada ka dilaaca qurbaha. hadday jawaabtaadu tahay haa, waxaan ku hayaa doctor aqoon sare u leh cilmi nafsiga iyo xalinta khilaafka soo kala dhexgala qofka iyo naftiisa. calaamadaha lagu garto xanuunkaasina waxaa kamid ah anaa og, anigaa fahansan, waan la socdaa, waan ka shisheeya, dadkan oo dhan baan ka horeeya. haddaad isku aragtay mid kamid a calaamadahaasi fadlan la soo xiriir doctor Mustafa Birxanuuje oo ah doctorka cilmi nafsiga iyo cabashada naftaada. haddii si aad tahay hoobal hibana u leh luuqda ay hawli ka haysato hirgeliwaaga heesahaaga oo heestii hadda soo baxday fiyuga kaga horeysa taadii kal hore waxaa hubaala inay ku heleen abwaanere qarqoora laxamiista qalooca iyo musician qubqaca. haddii si aad tahay siyaasi oo siyaasadaadu hagaasteemayse hana qaadi weyday waxaa go-ay bridgekii isku xidhaya hankaaga iyo himilada shacabka dhaqsa ugu hagaag goobta fadhi ku-dirirka ee kuugu dhow kuna qoro buugaaga xusuus qorka qaybaha ka anfaca mawjadaha hadalkeen loo miidaan dayeynin ee madashaasi ka socda. haddiise aad tahay ganacsade isaga kala goosha China iyo Dubai keenana qaar ka mid a bariiska baastada baacweynayaasha biibiilayaasha iyo buraashadaha caruurta oo binina ka faa'iideen noqoshada bulshada u keenay ka dhexbaad inay kugu soo baydheen baysteyma agoomeed ama hanti dhulood boobtay. ugu dambeynna waxaa la laalay xeerarkii ay ku shaqaynaysay maxkamadda naafada caashiqa ee adduunka waxaana dib looga furay dalka Sweden halkaas oo uu ku sugan yahay abwaan Cabdirasaaq Xaamud Caydi Jaylaani oo ahaa aasaasihii